kusoo dhawaada daawadayaal wararkii ugu dambeeyey Soomaaliya qodobada aad daawan doontaan waxaa ka mid ah dagaal xooggan oo ciidamada dawladda iyo kooxda Al-Shabaab ku dhaxmaray magaalada Kismaayo duleedkeeda iyo dawladda federaalka Soomaaliya oo war ka soo saartay dagaalkaasi wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta oo xaqiijiyay in 200 oo xubnood oo ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab lagu dilay gobolka Hiiraan jab xooggan oo kooxda Al-Shabaab ay kala kulmeen dagaalka gobolka Hiiraan iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada Laascaanood ayaan idin soo gudbin doonaa qodobadaas iyo qaar kale ayaa daawan doontaan daawaday haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelkan subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu halkan soo gelino aynu ku bilownaa daawadayaal warar dheeraada ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay dagaalkii ugu cuslaa oo u dhaxeeya ciidamada Jubbaland iyo kooxda Al-Shabaab oo maanta ka dhacay deegaanka Baarsanguuni ee gobolka Jubbada Hoose dagaalkan ayaa yimid kadib markii Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada Jubbaland ay ku lahaayeen halkaasi waxaana kadib xigay dagaal toosa saraakiil ka tirsanaa militariga Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta dawladda ayaa sheegay in laga hortagay weerarka Al-Shabaab isla markaasina lagu jabiyay dagaalkaasi ka dhacay duleedka Baarsanguuni oo dhaca dhanka duleedka magaalada Kismaayo sidoo kale waxaa saraakiisha ay intaasi ku sii dareen in ay hayeen xogta weerarka Al-Shabaab taasina ay keentay inay ka hortagaan weerarkaasi waxaa kale oo saraakiishu ay sheegeen inay dileen xubno badan oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab sidoo kalena ay ka gubeen gaadiid dagaal siday hadalka u dhigeen kooxda Al-Shabaab oo war ka soo saartay dagaalka ka dhacay Baarsanguuni ayaa iyaduna dhankeeda sheegtay guulo inay ka gaartay dagaalka waxaana kooxda Al-Shabaab ay tilmaamtay in saraakiil ay ku dileen dagaalkaasi xaaladda ayaa haatan ah mid degan waxaana goobihii lagu dagaalamay ku sugan ciidamada dawladda iyo kuwa daraawiishta ee Jubbaland dhanka kale dawladda federaalka Soomaaliya ayaa war ka soo saartay dagaalada iyo waliba howlgalladii ugu dambeeyay ee ka dhan ahaa kooxda Al-Shabaab gaar ahaan dagaalkii ka dhacay gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle dawladda ayaa shaaca ka qaaday in dagaalka saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka Inji ee dawlad goboleedka Hirshabeelle lagu dilay in ka badan 200 oo kooxda Al-Shabaab ka tirsanaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo shir jiraa'id ku qabtay galabta magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dagaalkaasi sidoo kale lagu dilay horjoogayaal ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab horjoogayaasha la dilay ayaa waxa uu sheegay inay ka mid yihiin Salaad Maxamuud Siyaad oo sidoo kale kooxda Al-Shabaab u qaabilsanaa ururinta dhaqaalaha baadda ah Xuseen Dheere oo isaguna ku-xigeen u ahaa Salaad ayaa ka mid ahaa dadka la qaarijiyay xubnaha kale ee Al-Shabaab horjoogayaashooda ahaa ee dagaalka Inji lagu dilay waxaa ka mid ah Yuusuf Cali Sheekh iyo Sandheere dhammaantood waxaa lagu dilay deegaanka Inji dagaalka ka dhacay wasiir ku-xigeenka warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaa waxaa sidoo kale uu tilmaamay in kooxda Al-Shabaab looga furtay in ka badan 300 oo hub ah oo isugu jiro noocyo kala duwan howlgallo xooggan oo ka dhan ah kooxaha khawaarijta ah oo saacadihii iyo maalmihii la soo dhaafay si xawliga uga socday qaybo ka mid ah dalka gaar ahaan dawlad goboleedyada Hirshabeelle Galmudug iyo Jubbaland howlgalka ugu xooggan uguna dambeeyay waxa uu ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Iji oo 23 kiiloomitir u jira magaalada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe halkaas waxa lagu farasaaray koox ka tirsan maleeshiyaadka khawaarijta ah waxaana dagaalkaas ama howlgalkaas oo si wada jira ay u fuliyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka dadka deegaanka gobolka Hirshabeelle ama dawlad goboleedka Hirshabeelle iyo saaxiibada caalamiga ah ee taageera uu ku soo dhamaaday si guul ah ilaa hadda inta aan xaqiijinay waxa halkaas lagu dilay in ka badan 200 oo ka tirsan maleeshiyaadkii khawaarijta ahaa ee goobtaas ku sugnaa kuwaas oo meydadkooda halkaas ay ka soo aruuriyeen ciidamada huwanta ah ee wada howlgelayay isla markaana la asturay isla markaana muuqaalkooda iyo macluumaadkooda oo dhammaystiran gacanta lagu hayo goobtaas oo howlgalku ka dhacay Iji lagu magacaabo waxaa lagu dilay
maleeshiyaad horjoogayaal ahaa oo dhib weyn oo aad iyo aad u weyn ku hayay dadka gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo runtii dhibaatooyin aad iyo aad u daran ay u geysan jireen horjoogayaasha halkaas lagu khaarijiyey ee ka mid ahaa ilaa 200 maleeshiyaadka ay halkaas lagu dilay waxaa ka mid ahaa salaad maxamuud siyaad oo ahaa nin caan ku ahaa aruurinta ama dhaca xoolaha dadka masaakiinta ah ee ku nool gobolka shabeellaha dhexe si weynna dadka gobolkaasi ay u yaqaaneen kaasoo ahaa sharwade aad u qallafsan oo dad badan oo maati ah oo tabar daran xoolahooda dhacay waxaa sidoo kaleeta ka mid ahaa yuusuf cali sheekh oo ahaa horjoogihii khawaarijta u qaabilsanaa magaalada fiidow oo isaguna halkaas ku dhintay waxaa sidoo kaleeta khawaarijta halkaas lagu dilay ee horjoogayaasha ahaa ka mid ahaa horjooge lagu magacaabo sandheere oo ahaa taliyaha waxa ay u yaqaanaan khawaarijtu xisbada oo ah maleeshiyaadka sida gaarka u qaabilsan in ay handadaan oo xoolaha ay ka dhacaan dadka gobolkaas ku nool iyo nin lagu magacaabo xuseen dheere oo isaguna ahaa sharwade khawaarij ah ahaana ku-xigeenka salaad maxamuud siyaad oo ah ninka aan idiin sheegnay halkaas waxaa lagu qabtay koox nool oo intooda badan qaba dhaawacyo culus kuwaas oo hadda lagu hayo xaalad xanaanayn ah waxaa sidoo kaleeto intii howlgalkaasuu socday ciidamada halkaas ka howlgalay ee mujaahidiinta ah ee khawaarijta halkaas ay ku laayeen kala wareegeen hub ka badan 300 oo qori oo isugu jira hubka culus iyo kuwa fudud waxaa sidoo kaleeto halkaas ciidamadu ay kula wareegeen agab kala duwan oo khawaarijtu ay isticmaalayeen oo ay ka mid yihiin daawooyin cuntooyin iyo agabkii kaleeto ee ay isticmaalayeen howlgal kale oo labaad ayaa waxa uu ka dhacay tuulada lagu magacaabo afcad oo ka tirsan gobolka hiiraan halkaas oo ilaa hadda uu ka socdo howlgal xoog leh oo maleeshiyaad kale oo khawaarija oo goobtaa ku sugnaa ciidamadu ay ku wajaheen isla markaana si guul ah u socda ilaa haddana lagu guulaystay in qaybo badan oo ka mid a khawaarijta halkaa joogtay la laayo hase ahaatee faahfaahintiisa dib ayaan insha allahu tacaala idinkala wadaagi doonaa howlgalka saddexaad waxa uu maalintii afaraad ka socdaa deegaano hoostaga magaalada bacaadweyn ee gobolka mudug halkaas oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka daraawiishta galmudug dadka deegaanka iyo saaxiibada caalamiga ah ay dhul hawd ah oo halka ku yaala ku baacsanayaan maleeshiyaadka khawaarijta ah afartii maalmood ee howlgalkaas uu socday ilaa hadda waxaan xaqiijinay geerida 70 ka tirsan khawaarijta halkaas joogtay waxaa sidoo kaleeto ciidamadu ay ku guulaysteen in isaga oo nool oo fiyow ay gacanta ku dhigaan mid ka mid ah horjoogayaashii gobolkaas khawaarijta u qaabilsanaa oo lagu magacaabo Salmaan Daahir kaasoo ahaa ninka qaabilsanaa qaraxyada iyo caafimaadka halkaas intii howlgalku uu socday waxaa ka soo baxsaday furimaha khawaarijta maleeshiyaad isku dhiibay ciidamada qaranka ee halkaas howlgalka ka wada sidoo kaleeto ciidamada ka howlgalaya aaga bacaadweyne waxa ay soo ururiyeen isla markaana astureen meydadka 700-yadaas ka tirsanaa khawaarijta lagu laayay dagaalkii halkaas ka dhacay waxaa sidoo kaleeto inta uu socday howlgalkaas oo weli socda laga saaray khawaarijta difaacyadii ugu waaweynaa ee ay ku lahaayeen gobolka mudug deegaanada lagu magacaabo qaycad iyo shabeelow oo ah dhul buuro iyo bacaad iyo hawd isugu jira oo godad tiro badan oo dhulka hoostiisa ay ka samaysteen hase ahaatee ciidamadu ay ku guulaysteen inay burburiyaan waxaana hadda howlgalkaasi uu u socdaa sidii loogu talagalay dhanka Jubbaland waxaa iyadana ka socda howlgallo xoog leh maalmihii la soo dhaafay oo xoogoodu ka socda dhulka hawdka ah ka agdhow ama ku muxuu ahaa hoostaga degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose halkaas oo dhul hawda oo khawaarijtu muddaba ay godad ka qoteen oo ay ku lahaayeen xarumo dhulka hawdka dhexdiisa oo ay ku dhuuntaan ay howlgallo burburina ka wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka daraawiishta dawlad goboleedka Jubbaland howlgalkaas oo si wanaagsan u socda saaka waa berigii khawaarijtu waxa isku dayeen in ay soo weeraraan oo ay dagaal ku soo qaadaan saldhig ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo daraawiishta Jubbaland ay ku lahaayeen deegaanka Sanguuni waxa ay ciidamada oo runtii aad iyo aad u feejignaa xogtoodana ay khawaarijtu ay ku guulaysteen in ay caabiyaan oo ay muxuu ahaa fashiliyaan weerarka halkaas khawaarijtu ay ku soo qaadeen
goobtaasna waxay khawaarijtu uga carareen meydadka 12 maleeshiyo oo 4 ka mid ah ay ku xiraayeen qaraxyo kuwaasoo ciidamadu ay joogteen ka hor intii aanay qarxin howlgalladaas oo dhammaantood runtii si aad iyo aad u wanaagsan u socda intii ay socdeen waxaa naga shahiiday 5 ka mid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamada daraawiishta ee dawlad goboleedyada iyo dadka deegaanka waxaa sidoo kale dhaawacyo ay soo gaareen 7 mujaahid oo iyagana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aan uga baryayno in uu caafimaad degdeg ah siiyo waxaan runtii guud ahaan halkan hambalyo uga diraynaa ciidanka qaybihiisa kala duwan haddii ahaan lahayn ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka nabad sugidda ciidamada daraawiishta ee dawlad goboleedyada dadka deegaanka oo dhammaantood aan ugu hambalyeynayno guulaha isdaba joogga ah ee furimaha dagaalka ay ka gaarayaan waxaan kaloon u hambalyeynaynaa shacabka Soomaaliyeed oo khawaarij kasta oo la dilaahi uu yahay qodax laga siibay gaar ahaan horjoogayaasha dhibka tooska ah ku hayay shacabka ee handadayay ee xoolahooda dhacayay ee maanta iyo xalay muxuu ahaa lagu laayay gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe iyo gobolka Galmudug ama gobolka Mudug qaybo ka mid ah waxaan sidoo kaleeto muxuu ahaa ku faraxsanahay inaan halkan ka sheegno in number badan oo ka mid ah khawaarijtu ay meelo kala duwan oo ah aagaga dagaalka ay iska soo dhiibeen guud ahaan daawadayaal intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa muuqaalkan aad daawanayseen tan intaanu dib ugu kulmi doona muuqaalo kale waxaanu haatan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo